Depression waa dilaaga aamusan balse dadka weli kuma baraarugsana khatarta cudurkan. Sushanti Zinga markii la maqlay warka ahaa aktarka inuu isaga isdilay, dad badan ayay ku noqotay lama filaan iyo wax aad ugu yar dunida inay dhacdo qof sidaan u hormaray inuu isaga isdilo. Master Zinga wuxuu ahaa aktar 2013 wixii ka dambeeyay filmadiisa aadka loogu jeclaa dunida oo dhan, balse booliska iyo dhaqaatiirta waxay isku raaceen inuu u dhintay xanuun dhanka maskaxda ah. Depression ayaa sabab u ahaa sida hadda la sheegay waxa uuna qaadanayay daawada walwalka. Sushanti waxa uu la kulmay maalmo kooban, murugo tiiraanyo iyo dib u cogasho dhibaatooyin soo maray noloshiisii hore iyo cidlada isbiirsaday intii lagu guda jiray bandowga COVID-19 ee dalka Hindiya. Master Rajput postigii ugu dambeeyay uu soo dhigay Instagram-kiisa wuxuu ahaa qoraal gocosho ah. Yaraantiisii waxa uu waayay waxa uu soo dhigay sawirkii hooyadii oo dhimatay 2002 markaasoo isaga aad u da'yaraa. Sidoo kale waxa uu ka naxay geeridii ku timid maamulihiisa Dishika Zelin oo ahayd 28 jir. Magac iyo dhaqaalo iyo nolol aad u sareysa kama turjumayso inaad hesho farxad iyo nagaashaha nolosha, balse farxadda aad hesho ayaa intaasoo dhan ka wanaagsan. Sushanti waxa uu ku dhashay Hindiya 14 bishii koowaad 1986, waxa uu dhintay 14 bishii lixaad 2020. Dhimashadiisu Sushanti waxay cashir qof walba uu ka baran karaa dhibaatooyinka uu leeyahay cudurka depressionka. Agaasimaha filimkiisa Nista Tiwari ayaa sheegay in Sushanti Zinga Rajput uu la hadlay toddobaadkii aan soo dhaafnay. Waxaan ku hadlo ma aqaan, waxaan la hadlay toddobaadkii aan soo dhaafnay. Waxa uu sidaa u sheegay wargeys ka soo baxa Hindiya ee Press Trust of India. Maamulihiisa Dishika Zelin oo 28 jir ahaa ayaa dhintay kadib markii uu ka soo dhacay dabaq 14 biyaan ka kooban oo ku yaala magaalada Mumbai ee caasimadda dalka Hindiya. Geerida aktarkan ayaa waxaa ka tacsiidiyay ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya iyo aktaro kale oo u dhashay dalka Hindiya. Dad badan ayaa sanad walba cudurkan ugu geerida caalamka oo idil.